بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن دمانتين بميل والبقاء الدنيا كجوكتان وحتكون سور دواتان برنامج كالدنيا يوحاتان قضبضات كداود دوتان وحاكمده هدي اللوين أرهالي كالنقضة ورركي يقدم بيي حيصد قبل كباريغا ديحي ومركا لفرح كسي بحضي إيو عيد كاستا إيران إيو مريكانكا oo qof kastaaba qorigiisa uu ku tashanayo barnaamijka ku soo qaadan doona hadii alla ka dhigo madaxweyne Donald Trump oo wacd ku maray dagaal shaam ah oo ka dhan dawladda wadanka Iran iyo ilaalada kacaanka jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran oo Trump ku yiri la soco hadaba cidi gacanta kuma haysatee habeena taagta maalin tabarta ayaa la yiri barnaamijka ayaan ku soo qaadan doona hadii alla ka dhigo 7 sano kadib boqortooyada dulmiga riman ee Saudi Arabia oo weerar dhinaca cirka ah ku qaaday xogaga gobonimo doonka ah ee reer Yemen hadaba 7 sano kadib maxaa ku kalafay Saudi Arabia inay weerarto xogaga awoodda badan ee reer Yemen oo Mareykanka iyo Israa'iil bay ka ashahaateen Sacuudigu ma waxay ku jirtaa waxay Soomaalidu oran jirtay miidaama dhigmale hadii malag dhawaaqayo xogaga gobonimo doonka ah ee geesiyaasha reer Yemen ee Xuutiga oo ballan qaaday jawaab argagax leh oo ka timaada dhankooda iyo Sacuudi garoomaheedii oo lagu kala cararay barnaamijka ayaa ku soo qaadan doona hadii alla ka dhigo 2014 ilaa 2019 oo Arab iyo Cajab Xuutiga iyagoo intaan ka tabaryar lagu goobtay hadii loo caalwaayay maanta oo gantaale guuxooda ka dheeray ay haystaan Saudi Arabia say wax u wadaa ma waxa ay awood mooday ayaamihii Imaaraadka Carabta ay bariga Yemen ka ciirsatay masaahul kale ayaa jirta qaar ka mid ah khubarada gobolka warbixin intaas ka dheer ayay warinayaan maxaa ka jiro barnaamijka ayaan ku soo qaadan doona hadii alla ka dhigo maxaa ka jira dagaalka Yemen ka soo xusboonaaday inuu yahay mid dhab ah oo u dhaxeeya Saudi Arabia iyo jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran maxay Saudi Arabia ka carootay barnaamijkan ku soo qaadan doona hadii alla ka dhigo waxa kale oo iyaduna barnaamijka ku soo qaadan doona tolow Saudi Arabia waa hubaar inaan iska dhicin karin xogaga reer Yemen ay gacan ka helaysaa yaa sabeenta u sheegay base dhabba dagaalka in Mareykanka iyo Israa'iil ay wakiil ugu tahay Saudi Arabia guul iyo guul darad maxaa la odorosayaa duqeymaha magaalada Sanaa maxaa xiga doona waxaas oo dhan iyo mas'uul saro ka tirsan Xuutiga oo ballan qaaday jawaab argagax leh barnaamijka ku soo qaadan doona hadii alla ka dhigo iyo wixii ku soo kordha inta aan barnaamijka ku jirno hadii alla ka dhigo aad ma hasantihiin soo dhawaado kanaalkeena subscribe siiya isla wadaag saaxiibadaada hadii ay tahay markii kugu horeysay u duceeyo wadankeena Soomaaliya inuu Ilaahay ka dhigo kan ugu xoog badan uguna dhaqaalaha badan qaaradda Afrika Soomaaliya oo nuclear power ayaanu Ilaahay ka rajaynaynaa hogaamiye muslima sida Umar ibn al-Khattab iyo Khalid bin Walid iyo Salahuddin al-Ayyubi u dhow Ilaahay talada inooga dhiibo jawaasiistan caloosha u shaqeystayaasha ah ee ka fikiraya iyagii ciyaalkooda kaliya si degdeg Allah inoo dhaafiyo dadka muslimiinta ah xanuunsan caafimaad taama Allah siiyo illa dhaalimiina wal faajiriina wal mujrimiina inta ma garanaysa wax la'aanta ah oo baahan wax badan oo baraka leh Allah siiyo dadka muslimiinta ah ee mujrimiinta iyo munaafiqiinta iyo gaaladu ay xabsiyada ku cadaabayaan Ilaahay ka soo sidaayo dambigooda Allah ha dhaafo eheladoodana samiriyo iimaan qulubta Allah uga buuxiyo dadka muslimiinta ah gaar ahaan reer Falastiin iyo reer Lebanon dhibaato gaar ah ayaa haysata Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka dulqaado dadka Soomaaliyeedna ul iyo diirkeed Allah ka dhigo dhibtan inagu dheeraatay Ilaahay subhanahu wa ta'ala amni iyo amaano iyo bushbush barwaaqah inooga bedelo waxaan horjoogana Ilaahay inooga bedelo hogaamiyaal muslima oo macna leh وهاجاك أدد ما هسنتنا وحن قد قلنا مركب برامجك 24 ساعة لصور رافد وحبيدي مموج وهل كان إذن فريا وإذن سوق الحلا مريكان كيو إيران مركله حالة ملحون أي جارتي وحجرة دجالك قبل كبري قد أدى يوقع هذا أو ولبا مريكان كو جارهان مدحوين دونالد ترامب وجوردو هذا يقول لي هاي وقبسن دونا قعن كلا يراد هرمس أطلنا اللي وريق دونا إيران بانو بربري دونا هدي ألباكورو يمركو حليه هاي عتان مرين دونا نبض وحل يراد مجرتو وحكستوا على مادين بوليه لكن هدنا إنا عكلا والضمض يوروب إيو قلبيت إيو عربتي علوشة وشقيسياش أها إيو كوي كلا إيو باكستان إيو وحاس أيو هدنا لقاها فرح لقشده وحليه وريقا قبط أيو ليه لكن
weeraradii u dambeeyay ee Iiraan qaaday faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa oo wali waxa la leeyahay Iiraaniyiintu waxay garaaceen goobihii gantaalada iyo goobihii shidaalka iyo goobihii askarta ay seexin jirtay ayay si yaab leh u garaaceen wali waxa la leeyahay saldhigyo qarsoodi ahaa oo ku yaalay Kuwait iyo Bahrain iyo Urdun ayaa la garaacay oo Mareykanka uu isla halka ciidamo kuguma oga adigu umba isla og laakiin Iiraaniyiintu waxa la leeyahay weeraradii ugu dambeeyay ay qaadeen kuwa kulul ayay ahaayeen waxaana la leeyahay khasaaro culus ayay geysteen inkastoo dawladda waddanka Mareykanka ay diiday in ay warbaahintu isku dayeen intooda badan laakiin faahfaahin dheeraad ah in laga bixiyo waa la diiday markii hore Bahrain iyo Urdun ayay duqeymuhu u badnaayeen waxaas waa la iskala soo gudbay hadda waxa ku soo biirtay Urdun oo iyana noqotay markan foolaadka goobta laga soo weerarayo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan waanu imaan doonaa dagaalka culus ee wajiga kala yeeshay ee Yemen iyo Saudi Arabia u dhaxeeyay laakiin kan wax yar dawladaha Jarmalka iyo Faransiiska iyo Ingiriiska ayaa cambaarayay weerar waxay ku sheegeen dawladda waddanka Iiraan daawada adduunkan waxyaabaha yaabka leh waxa kamid ah tusaale yar ay siinaya markii dawladda waddanka Ruushku ay Ukraine weerartay 2022kii reer galbeedka Mareykanka waxay ku hanjabeen hadii madaxweyne Vladimir Putin uu dilo madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky nuclear inay isticmaali doonaan oo dagaal toos ay gali doonaan yacni cirkii dhulka dhawaaqay ilaa min yawmin hadana handadaas waa wadaan laakiin Iiraaniyiintu markii hogaamiyaashooda leeyahay bal qiyaas oday 80 sano jir ah oo rajaaludiin ah oo waddanka inta la eg maamulay ayaa la dilay ciidankiisa iyo madax yacni waxa la leeyahay reer galbeedka iyo Mareykanka Iiraaniyiintu bani aadam uma qabaanba waana sax waxaan iyagu ahaynba adduunka nolol uma ogolaba dawladana iyagu ahayna ma jirto sharci aan kooda ahayna ma jirto iyaga iyo daba dhalafyadooda mooyee dunidan cid kale uma ogola laakiin waxa sameeyay shaqeynaysa waa maya ala inta xal markuu waxa la leeyahay waana wani idinku iriyo waa markii ugu horeysay ee taariikhda ee madaxweyne Ameerikaana ama madaxweyne ku xigeen ay ka walwalayaan in lagu dilo gudaha dalkood ay Iiraan disho hadda sababta madaxweyne ku xigeenkii oo waddanka Mareykanka oo kaliya wada hadalada inkastoo ay burbureen laakiin qorsho ah in Cumaan loo soo diro wax kale ma aha waxa laga baqay Iiraaniyiintu inay talaabo qaadaan yacni sidaas daraadeed marka hal qof bay soo dirayaanba si khasaarahooda uu yaraado ala intixaan hawshu marka way adag tahay madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay in guud ahaan gacanka Hormuz ay la wareegi doonaan wax badhaadha wax noocaas ah laakiin Hormuz rag bay gacanta ugu jirtaa hadduu xinayeeyay leeyahay yaa ka hortaagan war kale telefishinka la yiraahdo Al-Arabi Al-Akhbar ayaa sheeko cajiib ah warinaya magaalo la yiraahdo Ash-Shaciba oo ku taala waddanka Kuwait oo goobo qarsoon oo militariga Mareykanka halkaas ay ku lahaayeen ayay Iiraan weerartay waxa la leeyahay waliba guutada 103 ee ciidanka waddanka Mareykanka ayaa halka degnayd waxa la leeyahay ugu yaraantii sida ay telefishinkaas u warinayo oo isaguna Washington Post iyo New York Times labadaas midkood ay soo xiganaya hadda ma xasuustee yacni waxa lagu leeyahay 6 askari ayaa halkaas ku dhimatay tiro intaas ay ka badan way ka dhaawacmeen yacni qiyaas bal ay warbaahinta qaarkood waxay leeyihiin askarta dhimatay 40 meeyay ka badan yihiinba laakiin maxaa lagu ogaaday marka waxa la leeyahay ehlidoodii ayaa qaraxay oo warbaahinta ayaa la hadleen qaar kamid ah dadkii halkaas lagu laayay maalmihii ugu dambeeyay waliba bishii Mars ee la soo dhaafay ilaa yawm maanta aanu joogno waxa la leeyahay ciidanka Mareykanka ee saldhigyadaas jooga waxa la leeyahay geeridooda iyo dhimashadooda dhaawacooda tira beel waay bal hadda hatta Kuwait waxa la wariyaa in ciidamadii laga daabulay Bahrain saasoo kaleeto laakiin xerooyinka gantaalo laga tuurayo oo kaliya dhowr qof baa joogta gantaalada ay ka tuuraan meelihii qarsoodiga ahaa ee wadamadaas sida hadda goobtaan soo sheegnay oo la yiraahdo Ash-Shaqiba magaalada la yiraahdo oo Kuwait ku taalo ala inta xal markuu waxa la leeyahay askar badan oo Ameerikaana ayaa ku dhimatay kuwan waa ku dhaawacmeen arintaas markii ay soo baxday aflabadii ayay dhawaaqeen wadamadii yacni shacabkii waddanka Mareykanka madaxweyne Donald Trump marka arintaas culeys badan ayay ku keentay sida laahay ala inta xal gobolka bariga dhexe dagaal ayaa la isku ruqaansaday Iiraan wada hadaladii waa ka baxday habeen maalin weerar iyo weerar celis weeye laakiin khibradu waxay leeyihiin madaxweyne Donald Trump dagaalka inuu ku laabto doqoniminteeda leeg bay u tahay laakiin wuxuu rabaa mar rabo dagaal shaamil ah wuxuu rabaa in laba weerar uu qaado Iiraan laba ku soo qaado Capitoliskaas iyo Collaytonkaas in la isku wado oo uu meelo sida ku burburiyo ayuu rabaa laakiin Iiraaniyiintuna way fahansan yihiin meesha u socdaan ala inta xal hawshu way adag tahay
barnaamijkan qodobka halkaasaan uga haraya Yemen iyo Sacuudiga aan galeynaa maalmihii ugu dambeeyay dhowr laba barnaamij waxaynu kula wadaagay in dagaal u dhaxeeya xoogagga geesiyaasha ah ee reer Yemen iyo boqortooyada calooshad u shaqeysashada ah ee cadow kaalkaalka ah ee nimankan mujrimiinta ah ee dhaxaltooyada been ku sheega ah wadankaasi xoog ku jooga inay qorsheynayaan weerar ay Yemen ku qaadaan taban hadda sabab ay Sacuudi Carabiya Yemen u weerarto meesha ma bataalaba يعني حلي إن مكان ميشان أي إيطاليا رايان أيام الدجال كاسي اللي وكلا بحي إذا ما بدروا السعودي عربية كويت كميدا أي حوتي وقعنتك وهايان وحبال السويدين يا مركو حكميدا محاكينا إن سعودي أي يمنيين تويران وحاكينا يقولي بقى وير كمان تلاقوا قاعدة جرون كمجال الصنعاء وحوكسو بيجمي حلي جدجي أما وفدجي وحقوق الجنسياش الرير يمن حوتيجو أي إيران ودرين أيها صول لابنية وحلفلي مركني كسو دجان جد جرون كديارها مجال الصنعاء مركي أي دياردو دي هود الصوج شيء أيها جرون كلا الدقي من الترجع السعودي قاعد دقي أوكي دياردي قد كان حستي مجال الحديد اللي يرد يكون دكتي وفود أيجو أو النبض قبا دياردنا والدولة إيران بإسكاله أوكي haddii marka wuxuutigu marka waxa waliba nin la yiraahdo Maxamed Bakhayti oo mas'uuliyiinta ugu sarsareeya dawladda Yemen xoogagga reer Yemen xuutigu ay hogaaminayaan ayaa hadlay wuxuu yiri Sacuudi Carabiya duqeysay buu yiri maalmihii ugu dambeeyayna way sameeynaysaa laakiin waxa uu wacd ku maray boqortooyadan in dhigaha farax la gashan doono ayuu wacd ku maray tan kale sanadii u dambeeyay 2024 laga soo bilaabo ilaa iyo hadda سعودي عربية وحي حد قدب إيو لباتوك هايسا يمن يعني هو يمن بي معموليسا وحي كل هذا الديارة حوتي قوم إيمان كرتا واليمن أنا قاي إسكاله هذه كاقو سيئة أنا قوم السعودي كمو ويررنو حليسكو قمانيهين ونقبتين هذه قانا ساري على إتحال مرر بضن أياد كم بقشين قاميها يعني أقصر يحقق القبني مدونك ولا لها رير يمن عبد المالك بتر الدين الحوثي سقوا له نظام كالسعودي كجرا markii marban isfarasaari doona laakiin meelan kaga soo harayna cunqabateen bay ku hayaan oo maanta ugu dambeysay waa weerareen okay Saudi Arabia marka hadii 9 sano oo iyada iyo Arab iyo Ajab wixii muslim sheegan jiray ilaa macal Soomaaliya ku jirto ilaa 20 dawladood oo Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Yahuud ay ku jiraan ay Yemen weerareen 9 sano kadibna ay ka soo carareen hadda oo raggan oo gantaalo guuxooda ka dheer haystaan oo magaalooyinka Jidda iyo Riyaad ay u bedeli karaan Gaza maxaa Saudi Arabia weerarkan maxaa lagu geliyay arintaas aan idiga daba geenaya qaar ka mid ah muxalliliintu waxay leeyihiin waxani waa xarbul wakaala Sacuudigu waxa lagu yiri adar waa ku aragnaa kooda laba mid yeelaysa Mareykanka dhahay iyo Israa'iil anagu Iiraan rabna dagaal la galno haddaan Iiraan dagaal la galnana nimankaas marar badan bay noo soo fafakadeen waana la dagaalayaa adigu Saudi Arabia hadaa tahay adigu waa inaad xuutigu ku aadaa waa inaad dagaal ku qaadaa waa inaad weerartaa waa inaad naga sii mashquulisaa sidaas daraadeed marka intaan Iiraan weerarayno Mareykanka iyo hadaan hadaba elafyada iyo xoogaga shuftada ay iyo galbeedka iyo waxaan oo dhan anaga Iiraan qabanayna Libnaan duqeymaha saaba ku socda laakiin ragga ku awood badan waa Yemen marka adigu waxaad yeeshaa nimanka gal laakiin Saudi Arabia maxay ka faa'iido doontaa horta jawaabtu xuutigu يعني سيأتي وإيمان دونت آتين لا بعيدا إلا قريب يعني أقرب الرد في قصف الصنعاء جوابت وإيمان دونتا حلي أقول له أيين إيمان دونتا أوكي سعودي عربية مركا مو ببعدين كرتا جنتا لذا نقول حدا كده رأيه ديار ذا أنا أكتهين ورني من كان مريكان كيبا لابو كنا فرلبات أنت وحيلين أيين ولا لها إيرير فلسوال وجا وحيد عاي إلا دونالد ترامب ديارديس B2 iyo B hal habeen oo kaliya 2 weerar lagu qaaday subaxdiina wadogta way Mareykanka ku dhigeen markuu xal leeyahay Sacuudigu waxay ku jirtaa miidaama dhigmale hadii malag dhawaaqayo boqortooyadan waxay dad dulmiisaaba ayaamaheedii dhamaaday xuutigina hadda kadib wada hadal ma yeeli doono hadda Maxamed Bakhayti ninka leeyahay wuxuu yiri saddex shay oo kaliya aqbali kara kow si guud in cunaqabateenta loo kaga qaado laba Sacuudi in wadankana faraay kala baxdo hadii tan saddexaad wuxuu yiri in uu jiro inay cadeyso inaanay mar daba soo weerarayni gudaha wadanka Yemen iska daaya inta kala haysta waa inay ka baxdaa koonfurta waa inay bariga ka baxdaa totally dalkan inay ka baxdaa hadii kale de waxaynu kala helnaan kala leenahay marka Saudi Arabia marka garoomadeedii waa lagu kala cararay kala haadka ka jira ma malay kartid laakiin xogaama dib u laabanayna
2025 bishii 8 meelahan Saudi Arabia waxaad arkayseen wiishka gantaalada ka digo oo dhawaaqa hadii laba ku rooyay ku xirtay gobolada Qamis Mashaad iyo Najraan iyo ilaa Jidda meelahan magaalooyinka waaweyn oo wiishka lagu xiray laakiin wiishkii hadii uu dhawaaqo dadkii xagee galayaan dadku dhulba ma leh meel ay galaanba ma leh soo ma aha malakumoodkaagi oo soo dhawaaqayo qaylinaya ka carar soo ma maxaa dadka loo maqashinay ilaa meel ay galaanba lama hayeen waxa kale oo iyana jirtay ilaa bilowgii 2026 in Saudi Arabia ay dhaqaaq ka bilowday gacanka baab al-Mandab iyo badda cas iyo iyadoo la xuutigan u jeeda marka waxa la leeyahay yaani xuutigu awoodiisa la og yahay oo Mareykanka iyo Israa'iil ay gacmaha ka taagteen dabcan Saudi dagaalkan mid iyadu doonatay ma aha laakiin waxa lagu yiri hadda nimankan waa adoomo sidoo banaanba hadal ma diidi karaan waxa lagu yiri waa inaad xuutiga weerartaan waa inaad dagaal rasmi ah la gashaan أما هذا ديدان إن تحوتك الدجال كشان هدت أنا قاعدين ويرنا اللي تلابا لذيك قاعدنا بل فيري ما يو فيري يعني ماني الله كانوا حقوق برع دا وهنجبا وما جوابي كرتو ضد كريريا من ويستقال سنو جماد يصير أو هذا وحبك كهيستان محي ويرنا يعني محي كهيستان لكو حلالية هاي تاسي ويسكعد هاي سعودي جمرك أيامه هذا لما هذا وحاي السجنابة بدك الحوتي وحي أودان guud ahaan Saudi Arabia inay ka dhigaan fahal tara lahum min baaqiya maxaa yeelay haday warshada biyaha duqayaan oo shidaal Yemen shidaal uma soo baxo oo xuutigu sadhig military la yaqaan ma leh oo xuutigu meel looga to xuutigu Mareykanka iyo Israa'iil iyo reer galbeedkii oo dhanba ka cawdu biliist meel aad uga hagaagtid ma leh buurahan Yemen bay ku hoos jiraan gantaalo la yaabana way haystaan oo haday ceela shidaalka duqayaan oo ay biyaha duqayaan oo ay dhulka dhigaan madaxtooyada xagee looga hagaagaya marka waxa la ogaaday sida la leeyahay barnaamijkan waxay Saudi Arabia go'aansatay maaha waa barnaamij Israa'iil iyo Mareykanka ay wataan weeye yeel baana la yiri hadaadan yeelin yeelkada yeel sidaas hadaadan yeelin yeelkada sidaas daraadeed marka neef gowracan geed kama waad oo kale weeye way soo qarxisay sida la leeyahay marka wax iyaguna ballan qaadeen jawaab adag inay ka bixi doonaan mid kale waxa kale yaab leh diyaaradda la soo weeraray oo dadkan mas'uuliyiintan xuutiga wada Iiraan ay iska leh marka Saudi Arabia ma Iiraan bay rabtaa dagaal inay ku qaado ma Iiraan bay dagaal gali kartaa base waxa la abaabulayaa sida Mareykanka iyo xogaga burcada markii ay dagaalka ku jabeen waxa la yiraahdo sunno iyo shiico in la iska horkeeno la yiraahdo hadda Arabta hadaatihiin waa kaasoo waa idin duqeynayaayo shiica idin baabiinayso kuwa culmo ku sheegahayo caloosh u shaqeystayaasha haaye jawaasiista in la soo kiciyo nabiga caaya saxaabaday caaya hal ma wixii la soo wadaa okay simple leh hadii la keenay maxaa la qaadi karaa ya ugu fatuxun cidda ugu badanay awood u raadsan lahaayeen waa Mareykanka iyo maleeshiyaadka burcada reer galbeedka weeye hurmusa xiran gacanka baabalmada baxirma doona kaalamaha shidaalka ceelasha Sacuudiga guban doona dhinaca kale Imaaraadka iyo Sacuudiga wali isma salaamaan هل يمكن إن إماراتكم أي كتير ورا العقد واحد دونتان قاتل السعودية عربية وحي يقول سما يسكون سما يمكن وين عكرتها معقول وياه مركو حلالية هاي دقال كلا أيا الله فري وحين أقول تلقى المريكان كميليشيات كان برعدا ما دام يجوا يجوريان أو أي دقال كيكون جبان دقال كلا إلا أبورو يمني السعودية اللي يسكور جيو شعب السعودي جنيه قحان أيربورت ضبوا السعودية عربية الله ده هاي ما قاند هدي اللي يرادو وروح الله لو حرفتان قات أو سيد يحوتي قربان لا يلو نبض على أي حال مركو حلالية هاي هوش ميل قرار بمريسا دقال كان لكن واميد حرب الوكالة أو أي هدي اللي بكون روي هاي أي قدال كالريحيان مريكان كيو إسرائيل سي أي حوتي وصو حيلين ويرك أي قادي دونان حقوق الجيسياش أهرير يمن سيدو كاليتو sidoo kale to qaar kamid ah waxa la leeyahay xuutigu jawaabtoodu waa suuragal sida ugu dhaqsiyaha badan waxay ku soo kordha waan idin wadaagi doonaa laakiin markan aan eegno hal mar hadii ay jiraan waxyaabo markaas soo kordhay intii aanu barnaamij ku jirnay waa ku soo laaban doonaa hadii ay wax soo kordheen laakiin waxaan eegaynaa bal dii wax soo kordheen oo ku saabsan ama jawaabta xuutiga iyo noocaas ah ayaanu isla eegi doonaa hadii ay dhaceen laakiin waxay ballan qaadeen jawaab culus oo aad u foolxun inay sii doonaan boqortooyada dulmiga riman ee Saudi Arabia laakiin wakaalada warbaahinta la yiraahdo Fox News ayaa ka soo xiganaysa madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump in uu ballan qaaday in uu markaasay
marka uu si weerarka magaalada la yiraahdo gacanka Hormuz in la sii wadi doono ayuu ballan qaaday dhinaca kale dawladda magacyaalka afarta qof ay ka kooban ee wadanka Yemen ayaa iyaduna waxay sheegaysaa in ay markaas ay duqeyntiin iyagu ay geysteen xabad joojintiina sidoo kale inay dhacday ayay warinayaan waxa la warinayaa muuqaal magaalada Sanca garoonkeeda oo la duqeynayo oo sidoo kale gantaalada Yemeniyiintu iyaguna ay isku dayayaan inay magaranaysa ka hortagaan golaha sare ay Yemen ayaa hadda fadhiyo waxay leeyihiin ma aqbali doono duulaan kasta oo lagu soo qaado iyo xadgudub iyo wadankeena lagu soo xadgudbo tafaasiil dheeraad ah inay bixin doonaan ayay warinayaan waxa kale oo iyaduna kamid ah in madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin ayaa isaguna hadda waxa uu sheegay in dagaal culus in jawaab culus ay ka bixin doonaan weeraradii dhinaca diyaaradaha droniska ahaa ee dawladda wadanka Ukraine ay ku qaaday gudaha wadanka Ruushka waxa uu sheegay dhagaha faraha in la gashan doono oo Ukraine ciqaabteedu ay mudan doonto weerarkii ay ku qaaday dii laba ku rooyahay marka dhinaca iyo wadanka leerada Ruushka afayeen sare u hadlay ciidanka ilaalada kacaanka Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran ayaa isaguna waxa uu sheegay weligeed gacanka Hormuz Iran ayuu ka tirsanaan doonaa cid ajnabi ahana ma mari doonto ismina dhiibi doono dawladda wadanka Mareykanka xirfad iyo xoog iyo xeelad haday leedahay wuxuu leeyahay waa sugeynaa soo degdegaano marka waa war degdeg ah madaxweynaha jirriga ah Cabdirabbi Mansuur Haadi la yiraa isagii afarta qof ee magaca dawladda wadanka Yemen wata ayaa isaguna sheegay in xabad joojinta ay burburtay isla markaana Iiraan dagaal culus inay kula jiraan magaalada Sanca laba guri buu ka degan yahay Iiraan buu hanjabayaa halkaas ka faham waa Sacuudiga iyo howlahaas ayaa wata dhinaca kale dawladda wadanka Jarmalka ayaa u yeertay safiirka dawladda wadanka Ruushka u jooga magaalada la yiraahdo Berlin waxaan waxa laga weydiinayaa weeraradii ugu dambeeyay markaas shirkadaha reer galbeed ay leeyihiin dawladda wadanka Ruushka ay ku qaaday sida la leeyahay mana aqbali doono ayaa lagu yiri hagaag laakiin dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda dawladda wadanka Qatar ayaa iyaduna sheegtay inay cambaaraynaso weerarada goordhow lagu soo qaaday oo ciidanka ilaalada kacaanka ay ku soo qaadeen salagyada wadanka Mareykanka ay ku leeyihiin dalalkooda waa hagaag waxba yaabka leh waxa kamid ah nimankan meelaha la weerarayo iyagu ma lahan saldhig la weeraray Mareykanka Iiraan iyo Mareykanka way isdagaalayaan marka salagyadooda laga weerarayo Iiraan la weeraraya ma hadlayaan waa wax la yaab leh dhinaca kale magaalada Gaza duqeymo culus oo isdaba joog ah ayaa iyadana lagu haya tan iyo saakay goobaha sida yaabka loo duqeeyo waxa kamid ah magaalada Khan Yunis halkaas oo muuqaal laga soo duubay uu yahay mid aad u argagax leh tan iyo saakana aad iyo aad ayay arintaas u kordhinaysaa afayeenka taliska dhexe ciidanka ilaalada kacaanka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ayaa sheegay in dawladda wadanka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan sida Mareykanku ay sheegeen maadaama xabad joojinta Mareykanka ay ka baxeen iyaguna inay ka baxeen waxa kale uu sheegay diyaar inay u yihiin mandaqad inay ololi doontana ayuu ballan qaaday hadii Mareykanku isku dayo inuu wax markaa weeraro waxaad moodaa wax walba oo ku saabsanaa dhinaca iyo weerarkaasi gobolka bariga dhexe mar kale xaaladda inay aad iyo aad u xumaatay oo meel qaraar ay marayso hagaag wadamada carabta hadii Sacuudi Arabiya dagaalka say gashay ma u hiilin doonaan ma awoodaan inay u hiilayaan ma awoodaan marka xuutiga galka seefta kala baxeen waxayna warinayaan saacadaha soo socda jawaab culus inay bixin doonaan hagaag aad baad u mahadsantihiin wararkani wuxuu ku soo korwan idin la wadaagi doon hadii la ka dhigo inta ka horeysa nabadgelyo